kulan haboon saaxiibayaal meel kasta oo aad naga daawaneysaan iyo xilli kasta oo ay idin tahay ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas. Cabdixamiid Khadka ayaan ahay saaxiibayaal qodobo aad u xiiso badan ayaan muuqaalkan kaga bogan doontaa. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelka si share garee muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada na soo follow garee. mahadsanid. faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya xaaladda Gaza iyo duqeymaha Israa'iil ay ku hayso dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool marinka Gaza ee go'doonsan. in ka badan 1 milyan oo shacab ah ayaa ku go'doonsan halkaasi iyagoo aanan wali laga warhaynin xaaladooda iyo waxa ay ku sugan yihiin bulshadaasi. hay'adaha qaramada midoobay ayaa horey uga deeriyay xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada ku nool marinka Gaza. dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah halkaasi oo dhinacyadu wali ay adeegsanayaan awoodaha iyo hubka noocyadiisa kala duwan. ciidamada Israa'iil ayaa habeenkii xalay ahaa sheegay in weerar dhinaca dhulka ah oo ku bilowday taangiyo ay ku qaadeen marinka Gaza iyagoona sheegay inay ka gudbeen xadka Gaza. weerarka ayayna bilaabeen Israa'iil iyadoo oona digniinaha ka imaanaya xulafadeedu ay tilmaameen inaysan ku degdegin tallaabadaasi. sidoo kale war ka soo baxay dhinaca Israa'iil ayaa lagu yiri ciidankeena iyo taangiyadeena waxa ay ku sugan yihiin gudaha marinka Gaza. sidoo kale shalay waan joognay halkan ayaa lagu yiri sida ay lagu sheegay war ka soo baxay wargeyska New York Times. afayeen u hadlay ciidamada Israa'iil ayaana sidaas sheegay balse garabka militariga ee Hamas ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu ay iska caabin xooggan kala hortageen ciidamada Israa'iil ee weerarka ku soo qaaday waxayna sheegeen inay hor istaageen oo ay u jirib laabeen ciidamadaasi Israa'iil. israsaasayn muddo socotay ayaa sidoo kalena la soo wariyay inay dhex martay labada dhinac ee Hamas iyo Israa'iil. dhanka kale ururka Xisbullah iyo sidoo kale ciidamada Israa'iil ayaa israsaasayn xooggan iyo dagaal dhaxmaray habeenkii xalay ahaa. dhanka kale wali waxa uu midmadow iyo tuhun ay gelinayaan Israa'iil in weerarka ay si toos ah u qaadeen ay horey u ilaamiyeen ay sheegeen inay weerar dhinaca dhulka ah ku qaadi doonaan marinka Gaza. sidoo kale duulaanka lagu qaaday marinka Gaza gantaalada duqeymaha diyaaradaha iyo sidoo kale cirka dhulka iyo badda ah ee lagu qaaday marinka Gaza gudoominta iyo jiritaanka isgaarsiinta iyo internetka ay marinkaasi ayaa ah oo Israa'iil ay ku sheegtay mid bilow u ah weeraradeeda dhulka cirka iyo badda ah ee horey u ilaamiyeen inay ku qaadayaan marinka Gaza.